الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسك إن شاء الله تعالى وحكو سابسين حديث كمدة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وقصة أروري في صحيح مسلم. حديث كسي أبا هريرة ورنا يوحان النبي لي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نبي عليه الصلاة والسلام حديث كما حكوت المامية قيب حكو سفينيا قفك مؤمن كا حقا يسدوغ خير بدن يهي كي ضعفك كتشره. قيبها الضمانة وحكوت المامية النبي عليه الصلاة والسلام وصية وصينا يددك مسلمين تا وحنا بيقول المؤمن القوي مؤمن كحوقه قوة لشيغيا ومعنى بلارنتي. علماء ضبط وكمية إمام النووي رحمة الله عليه وحليه: والقوة في الدين والتقوى والعبادة. قفك مؤمن كي كحوقا عقيدة ديس يا دين تيس يا عبادة ديس كاول اسكو هذا الرعسي سين كاسا خير وأحب إلى الله كخير بدن وألكتي سلقاقتش عليهي من المؤمن الضعيف. مؤمن كعقيدة ديسا أما إيمان كيسا أما عبادة ديسا أما أعماشيسا آخرة أي ليدته. وحكى علماء كت المامان المؤمن القوي. المؤمن القوي الرجل القوي هذا أي القوي في رجولته كاسوا معناه لبعض علماء التلمامة وحويان إن قوة الله إطلاقه ومؤمن كحوق بدن له، سواء هدو حوق جريدي هاي أو دي جهادي عبادة يكو استعمال أما هدو حوق عقليادي هاي، أما هدو حوق علميادي هاي، أما هدو حوق عبادي أي باب حوق وقل كرابي لي. marka mu'minka awoodda badan leh ee awoodiisa si khayrka u adeegsadiya iimaanka iyo intaajka iyo wax soo saarka, mu'minkaasa ka khayr badan mu'minka daciifka ah. culimadu waxay yidhahdaan fil asli dee quwada waa layna faray, waaciddu lahum mastatactum min quwa baa ilaahay yidhi markii gaalada iyo jihaadka laga warramayay. waxaa u diyaarsataan wixii xooga a awoodaan oo dhan baa la yidhi. idan xooggu في كل أبوابه هذه خير له أديك سنة يوا خير. وواحد هذا مؤمنك شرهان حق بدن قوة بدنية له خير كوا أديك سنة يا ده كوحتر بدنية مؤمنك ضعيف كاسكليته يعني سقوح بدن قبن كرينين. مؤمنك حقه في علمه وفي إنتاجه وحصوصار كيسيا قونتي سي حق بدن تهي dadka ku anfacaya wuu ka fadli badan yahay kii jahliga ku jiray amase kii aan muntijka ahayn ee laziga ahaa, kii qofkii iska fadhiyaan wax soo saarka lahayn. waxay duuduub ahaan tilmaamaysaa quwadu xataa quwa albadaniya. qisadii matala nebi muuse ilaahay markuu ka warramayay reer u yimi magaalada meesha dadku xoolaha waraabsanayaanee habluu laba hablood ay xoolahoodii cidlo ula baxeen. maxaa idinka idinku dhacay buu yidhaha xoolaha u waraabsan weydeen. waxay yidhahdeen annaga aabahayana waa gaboobay, yacni waa daciif maa yaqdir shay. annaguna ma gallo raggu meeshana isku jiidhayaan ilaa iyo ay ka baxaan. dabeetana wuu u waraabiyey. hadhow inantaasi markay aabbaheed la hadlaysay ee rabtay ninkan in reerka aanu ka tegina si uun loogu hayo
ayaa waxay tidhi yaa abati ista'jirhu ina khayra man ista'jarta alqawiyu lamiin. aabbow ninkan shaqaalaysiisa bay tidhi oo ajiir ka dhig. ina khayra man ista'jarta alqawiyu lamiin bay tidhi. qof shaqo loo dirto waxa u fiican qof xoog leh oo qawiyo wixii qaban karaya ammaanana leh. idan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa mu'minka xooggan oo ay ugu horrayso ilaahay rumayntiisa iyo daacadiisa iyo cibaadadiisa iyo acmaasha aakhire ku xooggan. dad baa jira sida kale u xoog badan laakiin marka ay timaado cibaadaadka iyo diinta iyo caqiidada ducafa ah. kani kow waa qof baabkaasi ku xoog leh. ka labaad waa qof bay yidhaahdaan muntij ah, qof wax soo saar leh. kaasi wuu ka khayr badan yahay mu'minka daciifka ah. haddana wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa fii kullin khayr. mu'min oo dhanna khayr baa ku jira. hadduu qofku iimaan iyo camal la yimi ha laba kala martabo sarreeye khayr baa ku jira. waxay yidhahdaan culamaa ilbalaaga masaladan oo kale alixtiraaz bay yidhaahdaanoo waxay ku tilmaamaan qofku intuu war yidhaahdo in siyaabo kale aan loo fahmin ayuu ka ixtiraazaa. مثلا إلهي القرآن كوحو كويري لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. مص النبا إلهي يري كوي فتح مكهر تدحولها بحيات دقا الله ما يدين توسوها القمي كوا ساد درجة صرية وفتح مكة وحي كدن بي وحي مركاي السلامية وحقبطيميان وحد وترسيس الهين haddaad sidaa u fahmi lahayd way qaldami lahayd. laakiin ilaahay baa kasii jawaabo wuxuu yidhi wakullan wacada allahu alxusna. dhammaantood ilaahay baa u yaboohay wanaag, labaduba wanaag bay leeyihin. sidaa awgeed maalan qisadii nebi daawuud iyo nebi sulaymaan ee wax xukumay marka ilaahay tilmaamaya wuxuu yidhi wadaawuuda wasulaymaana id yaxkumaani fi lxarth id nafashat fiihi ghanamu lqawmi wakunna lixukmihim shaahidiin fafahamnaha sulaymaan baa ilahay yidhi. waxaa xustaa nebi daawuud iyo nebi sulaymaan markii ay xoolihii beerta galay xukumayeen waxaa ilaahay ku tilmaamay fafahamnaha sulaymaan. nebi sulaymaan baanu fahamsiinay. nebi sulaymaan baa la fahamsiiyey daawud wax garan maaya miyaa maya si aan kaa looga fahmin baa ilaahay yidhi wakullan aataynaa xukman wacilma. dhammaantood waxaanu siinay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala xukum iyo cilmiba, labaduba dhammaantood way lahaayeen. آيات كلا إله وحول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. على كل نحن وصعنا وفي كل خير إني تلماميسو مؤمن كإيمان صحيح لقاها لا طاعد سليمي كل بين خير كسوغيني. laakiin markay timaado mu'minka in classification lagu sameeyo in la kala sooco inuu ka qawiga iyo ka khayr badan yahay ka daciifka abuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. qaacidada markuu nabigu sheegay ayuu wuxuu inoo tilmaamayaa dardaaranana siinaya. dardaarankani waxa uu sheegayaa wixii qofka mu'minka qawiga ka dhigi lahaa. maxaa qofka mu'minka xoog u yeelaya? wuxuu nabigu yidhi kow احرص على ما ينفعك. waxaad ku dadaashaa oo ilaalisaa waxa ku anfacaya. nolosha aynu joogno bini aadamku waqti isku mid u haystaa. waqti isku mid ah inta badan dadku 60 jir 50 jir 70 jir meelaha waa soo wada gaadha. laakiin midhaha iyo raadkay dunida kaga tagaan iyagoo isku waqti noola waa kala nooc. sababtay u kala noocyiina waa masaladatan. camalka bini aadamku qabtaa waa 3 qaybood midu inuu yahay qayb ku anfacaysa, qayb wax tarta aakhiriya adduun manfacuun leh, iyo inuu yahay qayb wax dhibta aakhiriya adduuma dhibaato kuugu jirto, iyo inuu yahay qayb aan manfac iyo madaro toona lahayn. laba inaad ka tagtaa markaa la rabaa midna qaadatid. wuxuu nabigu leeyahay ixras calaa maa yanfacuk. waxaad ku dadaashaa waxa ku anfacaya.
waqtigaaga iyo maalintaada iyo xooggaaga iyo cilmigaaga iyo aqoontaada iyo hantidaada iyo garaadkaaga iyo waxaad awood leedahay oo dhan waxaad ku isticmaashaa waxa ku anfaca. taa macnaheedu waxa weeyaan waxaad ka tagtaa wixii ku dhibaya ka tag. waxaad kaloo ka tagtaa waxaan macnaha samaynaynin. dadka in badanoo ka midi waxaabay dhib ku ah waqtigoodaba, marka waxay raadinayaan waxay ku dilaan, waxay ku madadaashaan. madadaaladu waa wuxuu rabo qofku inuu waqtigiisa ku baabi'iyo, xooggiisa iyo xoolihiisa iyo caqligiisa ku baabi'iyo, aan adduunkana manfac ku lahayn aakhirana manfac ku lahayn. adduunna wax kama tarayso waxaan u wadaa, aakhirana wax kama tarayso. qofna isagu wixii dhibayay baabuu waqtigiisii ku bixiyey wax xaaraan oo aan diin ahaan ku bannaanayn oo caqiid ahaan bannaanayn oo ayuu ku bixiyey. nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacak, calaa maa yanfacuk, ku dadaal waxa ku anfacaya. bitacbiiri ahli lcasri waa waxay yidhahdaan kun muntijan aw kun iijaabiyan, qof wax soo saar le ahaw, qof wax tara ahaw, qof wanaagga qabta noqo. noloshaada maalintii waxaad qabanaysaa waa inaad isweydiisaa ma manfac adduun buu kuu leeyahay mise manfac aakhiro kuu leeyahay. haddaad waxa labadaa ka dhex arki weydo waa wixii lagu yidhi ka tage ka tag. haddaad manfac adduun ka weydo ama manfac aakhiro ka weydo waxtar ma leh. sheekada ugu badan ee soomaalidu ka sheekaysaa waxtar ma leh. siyaasadda iyo qabiilka iyo reeraha iyo waxa laga sheekayo oo dhambe waxtar ma leh. kubadaha iyo cayaaraha iyo wax la daawado oo dhambe waxtar ma leh. wararkan habeen iyo maalinba la dhegaysanaya la wado intooda badan waxtar ma leh. wax badan aan waxtar lahayn baa dadku waqtigiisa ku qaada. nabiguna wuxuu tilmaamayaa min xusni islaami almar'i tarkuhu ma la yacniih. qofka muslimka islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid ah isagoo ka taga waxaan macno u samaynaynin. tarkuhu ma la yacniih, waxaan isaga khusaynin. waxaan ku khusaynin waxna ku taraynin. maanta dha haddaad ka waranto laba gaaloo meel isku dilay kii la dilay, adiga waxba ku tari mahayaan. warkooda iyo akhbaartooda waxba ku tari mayso. akhbaarta siyaasiga dad ka sheekeeya inteeda ugu badan le waxba ku tari mayso. waxyaabahan ka sokeeya iyaguna cayaarahan iyo madadaadadan iyo whatsappkan iyo snapchatkan iyo waxa la wadoo dhami akharuhum waxbaabay dhibaan aakhiriya adduunba. inta aan aakhiriya adduun manfaca ku lahaynina aan wax dhibinina waa inaan adduun iyo aakhiratoona manfac ku lahayn. marka wixii aan manfac ku jirin mid adduun iyo mid aakhiro waa inaad ku xisaabtantaa inaad waqtigaaga iyo xoolahaaga iyo xooggaaga iyo caqligaaga inaad gelinin. sidaa awgeed buu nebigu wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacuk, wixii ku anfacaya ku dadaal. intaa kadib buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wastacin billaah, ilaahayna kaalmayso. ilaahay kaalmayso macnaheedu waa in qofka mu'minka ahi wax kasta oo uu qabanayo ama uu ka fakerayo wuxuu rumaysan yahay inuu ilaahay gacantiisa ku jiro. qofka mu'minka ee dhabta ahi guruur kuma dhaco iyo cujb, isla weyni iyo anaa caqli badan iyo anaa karti badan iyo kaama rumaysana. qofka muslimkii wuxuu rumaysan yahay ilaahay inuu mar kasta u baahan yahay, mar kastaba inuu ilaahay u baahan yahay. saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ina baray mar kastoo inuu ilaahay ishortaagna inaynu akhrino iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. ilaahu adaanu ku caabudaynaa keligaa baanu kaa kaalmo dalbaynaa. qofka muslimka ahi mar kasta baahidiisa waa qof ilaahay u bandhiga, waa qof muujiya inuu yahay addoon daciif ah, waa qof rumaysan laa xawla walaa quwata ila billaah. wuxuu rumaysan yahay waa kanzun ayuu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. cabdillaahi ibnu qays buu nebigu yidhi ma ku tusiyaa kanz min kunuuzi ljanna, khasnadaha jannada ka mida makuu sheegaa? faqultu balaa yaa rasuula allah, haa buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow. xadiidka saxiixayn ku yaal nebigu wuxuu ku yidhi markaa laa xawla walaa quwata ila billah weeyaan. laa xawl xeelad malihi iyo awoodtoona ilaa billaahi mooyaane, ilaahay oo aan gargaarsada mooyaane
anigu xawl iyo xeelad iyo quwo iyo itaal midna ma lihi. qofka muslimka ah markaa waa qof baahidiisa ilaahay u bandhiga. nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabigii uu jeclaa ee mucaad ibnu jabala wuxuu ku yidhi yaa mucaad wallahi innii la uxibuk, ilaahay baan ku dhaartay mucaado waan ku jeclahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. markaasuu mucaadna wuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo arguna waa ku jeclay. nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu yidhi kelmadaan ku barayaa ee salaad kasta dabadeed ha ka tegin. mar kastoo aad salaad tukato farala erayadan ku dhawaaq. erayadu maxay yihiin? waa erayada adkaarta aynu akhrino markaynu salaadaha tukanoyn. allahuma acinnii calaa dikrik wa shukrik wa xusni cibaadatik. wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal waxaad tidhaahdaa ilaahayow iigu gargaar xuskaaga, inaan ku xuso aanan ku ilaabin, inaan kuu mahadnaqo aanan kaa gaaloobin, iyo si fiican inaan kuu caabudo. ilaahu kaa iigu gargaardhe. nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu inagula dardaarmayaa kow ixris calaa maa yanfacak, wixii ku anfacaya inaad ku dadaasho, waxaan ku anfacayn inaad ka tagto, isla markaana inaad ilaahay tala saarato oo ilaahay subxaanahu watacaala aad u tala saarato wax walba. wuxuu nebigu raaciyey markaa taa cagsigeeda waxaa dadka u diiday inay wax qabtaan. walaa tacjis buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. tacjis iyo tacjas labadaba waa la odhan karaa buu yidhahdaa imaamu nawowi, laakiin kasrada caana. walaa tacjis, ha caajisin. ha caajisinku waa maxay? qofka bini aadamka laba wax baa ku dhaca bay yidhaahdaan, alkasalu waalcajsu bay yidhaahdaan. kasalku waa qofka wahsiya, cadamuliraada, waa qofku aan doonisba lahayn, inuu wax qabtaba rabin. cajsiguna waa qofkiiyo raba inuu wixii qabto laakiin haddana qaban karila, u taagla. cadam ilqudra, shaqo kastoo la qabtaa waxay dhahdaan labadan shay buu camalku ka kooban yahay, inaad waxaad doonaysid iyo inaad awoodid. markaasuu camalku kuu qabsoomaya, inaad doonaysid inaad qabato iyo inaad awooddo. nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu tilmaamayaa inaynan cajsinin. dadka badh ayaa wax kastoo ay qabtaan taswiif ku sameeya, insha allah berraan samayn doonaa. war maanta aad qaban karaysaa, maxaa berri camal kale u dhigo? maya berraan samayn doonaa. wax kasta berru u dhigaya. ama maahe brogramyo iyo barnaamij buu degayaa, markaasuu leeya insha allahu saasaan yeelaya. sanadka dambe qur-aankaan xifdinaya, sanadka dambe waxaan rabaa jaamacadda ee balas inaan kaga baxo, insha allah waxaan rabaa waqtiga soo socda tijaaradaasi inaan galo, waxaan rabaa kutubtaa inaan dhigto, waxaan rabaa cibaadadaa inaan sameeyo. laakiin afku ka leeyahay waa barnaamij afka ah, camal ma gaadhayo, isuma bedelayo. maxay? wax camala isuma bedelayo. in wax la bilaangareeyaa ma xuma, laakiin waxaad bilaangaraynaysaa waa inuu yahay waxaad awoodoo qaban karaysa. marka koowaad shay fii maqduurik waa inuu yahay, waa inaad qof riyoonaya noqon. dadka badh baa day dreaming, adoo soo jeeda inaad riyooto maaha. waxaanad samayn karayn haddaad iskaga wadwado waa riyo kale un. dadkii hurdaa riyooda, dadka soo jeedana qaar baa riyooda. oo mar haddaad waxaanad qaban karayn aad ka fekerayso waad riyoonaysaa. waxaad balaangaraysay waxaad qaban karto waa inuu noqdaa. marka labaadna waa inaad fulisaa. fulintu dadka badh baa fulanima haysaa. armaa dadku kula yaabaa, armaa si xun lagu eegaa, armaa shaki unbaaba iskaga soo ururaya dadka badh, oo wixii uu qaban lahaa u diidaya. armaa lagu idhaahdaa waxaan wuu istusaya, waxaan kan buu samaynaya. laakiin nebigu wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacak wastacin billaah walaa tacjis. marnaba ha caajisin. bale nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii u shaqayn jiray anas ibnu maalik ahaa ayaa wuxuu leeyahay anuu nebiga u shaqaynaya wuxuun baan maqlaa isagoo ku celcelinayoo leh allahuma innii acuudu bika min alhami waalxasan waalcajsi waalkasal waalbukhli waaljubn wadalaci اddayni waghalabati الrijaal.
isagoo ku celcelinayo le ilaahu waxaan kaa magan galay warwarka iyo walbahaarka iyo tiiraanyada iyo murugada. hamigu waa waxa soo socda uu qofku ka warwaro mustaqbalka oo la madoobaada